डाल लो क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा सादा है और है किस बारे में बॉलीवुड saaxib yaal ku soo dhawaada channelkan Elias Prem maanta waxaan dul istaagi doonaa sheekada Aryan Khan wiilkii uu dhalay Shah Rukh Khan oo bariyahan bahadal hayntiisa haysta social media Aryan Khan waa wiilka ugu weyn ee uu dhalay jilaaga caanka ah ee Shah Rukh Khan hooyadiisana waa Gauri Khan inkasta uu ka dhashay qoys caan ah oo Bollywood-ka magac weyn ku leh Aryan Khan wuxuu doortay waddo ka duwan tan aabihii wuxuuna u leeday dhinaca agaasinka iyo qorista sheekooyinka filimada Aryan waxbarashadiisa sare wuxuu ku qaatay University of Southern California USC halkaas oo uu ku bartay film samaynta iyo qoraalka wuxuu si qoto dheer u bartay hal abuurka muuqaalka wuxuuna si tartiib ah u bilaabay inuu dhiso magaciisa isagoo aan ku tiirsaneyn magaca aabihii wuxuu si rasmi ah u bilaabay agaasimnimada ama directornimada sanadii 2023 isagoo bilaabay mashruuciisa ugu horeeyay ee Netflix laga daawan doono Aryan Khan wuxuuna soo saaray taxane aad u weyn oo la wada sugaya magaciisa inuu yahay The Baddies of the Bollywood waa taxane kaftan iyo dalacayn isku dhafan oo si qoto dheer u eegaya nolosha gudaha ee Bollywood-ka dhinacyada qarsoon tartanka iyo khiyaanooyinka ka dhaca warshada film samaynta ee Bollywood Aryan mashruucan wuxuu ku muujinayaa doorkiisa directornimo iyo sheeko aad u macaan oo soo jiidasho leh iyo hal abuurka muuqaal aan hore loo arag taxanahan xiisaha leh Aryan Khan wuxuu ku muujiyay dhinacyada qarsoon ee aan la arkin ee ka dhaca warshada filimada xaqiiqooyinka khiyaanooyinka iyo xifaaltanka ka dhex jira Bollywood-ka aan la sheegin taxanahan The Baddies of the Bollywood waxaa la filayaa in la daabado 18 September bishaan aynu ku jirno iyo sanadkan 2025 waliba waa taxanihii ugu weynaa ee abid ee markaas ay soo saartay Bollywood waxaana laga sii deyn doonaa TV show weyn ee Netflix haddaba Aryan Khan maxay tahay sababtu u diiday inuu noqdo jilaa sida aabihii oo kale Aryan Khan wuxuu si cad u sheegay in uusan rabin inuu noqdo jilaa sida uu aabihii Shah Rukh Khan uu ugu sheekeeyay barnaamijka David Letterman Shah Rukh Khan xilli wiilkiisa wax laga weydiinayay ayaa waxa uu yiri Aryan wuxuu dareemay in dhammaan waxqabadkiisa la barbardhigi lahaa tan aabihii taasoo cadaadis weyn ku keeni lahayd wuxuu yiri haddii aan si fiican u ciyaaro dadku waxay dhihi doonaan waa wiilkii SRK ama Shah Rukh Khan haddii aan si liidato u ciyaarana waxay dhihi doonaan wuu fashilmay Aryan wuxuu leeyahay haddii aan caanbaxo ama wax qabad muuqda aan la imaado waxay dhihi doonaan waxa gadaal ka riixayay aabihii oo waa aabihii ayaa soo saaray aabihii ayaa actor ah sidaas darteed ayuu u muuqdaa wax qabadkaygu uu qarsoomi lahaa haddii aan guuldareystana waxay dhihi doonaan wuu fashilmay macnaba ima samayn lahayn inaan wax jira ayuu yidhi sidaa darteed Aryan wuxuu doortay inuu ka fogaado iftiinka shaashada isagoo doorbiday inuu ka shaqeeyo kaamirooyinka gadaashood halkaas oo uu si xor ah ugu muujin karo hal abuurkiisa dhinaca kale Aryan Khan waa qof xasiloon oo jecel qoraalka si gaar ah u ilaaliya noloshiisa gaarka ah wuxuu ka fogaadaa warbaahinta wuxuuna doorbidaa inuu ka hadlo shaqadiisa oo kaliya halka uu ka noqon lahaa qof caan ah oo saameyn leh oo hadal badan Aryan Khan wiilka uu dhalay Shah Rukh Khan wuxuu la yimid hal abuur cusub wuxuuna qaaday waddo ka duwan tii ay qaadeen Tegar Sharif iyo aktare kale oo badan oo gadaal ka riixaya waalidiintooda oo caan ah oo ku jira Bollywood-ka wuxuu doortay waddo adag isagoo ka fogaaday jilaannimada si uu u dhiso magac u gaar ah mashruuciisa The Baddies of the Bollywood wuxuu ballan qaadayaa inuu bedelo sida aan u aragna Bollywood-ka waa taxane la sugayo waxaana la daawan doonaa laga bilaabo 18 September 2025 waxaana laga soo sii deyn doonaa Netflix daawade intaani haddaad ila soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad ula socoto muuqaalada cusub ee aan halkan soo dhigno nabadii